Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibayaal dhammaantiin kusoo dhowaada cashir kale oo ku saabsan guud ahaan kubadda cagta gaar ahaanna qaabka boos qaadashada ee ciyaaryahanka. Afarta buluugga ah sida caadiga ah waxay doonayaan halkan inay gadaal usoo laabtaan si ay u difaactamaan. Kuwa weerarka ah ee guduudka haddii ay boos qaadashadooda ahaato si toos ay u cararaan difaacyada waxaa u fududaanaysa in weeraryahan walba in booskiisa ay ku qabtaan. Laakiin haddii weeraryahanadu ay si qalqalooca u ordaan difaacyada waxaa ku adkaanaysa in weeraryahan walba ay meel ku hubsadaan, taasoo kalifi karta in difaacyada ay boosaskooda lumiyaan. Tusaale caadi ah, waxaad halkan ka arki kartaan weeraryahanka u dhuumanaya booska ay calaamaddu tilmaamayso, taasoo difaaca ku kalifaysa inuu soo raaco, kadibna uu furmi doono boos weyn. Boos qaadashadaadu waa u muhiim kooxda, waa inaadan hal meel taagnaadin oo mar walba aad isku daydaa in aad raadsato boos furan. Waxaa muuqata in difaacii uu kasoo laabtay weeraryahankii baaska qaadanaya ee uu raacay. Maxaa dhacay marka? Boos qaadashada wanaagsani difaacoo dhan halis bay ku tahay levelkuu doono ha jooge.